Hallow, dunidan waxaa ku nool makhluuqaad kala duwan, aqwaan ilaahay kala duway, xagga diinta, dhaqanka, midabka iyo muuqaalkaba. Waxaa jira dad fara badan oo aadan malaynin inay ku nool yihiin dunidan, balse ku nool. Dadkan aan maanta kuugu sheegi doono halkan, waxay ka mid yihiin dadka dunida ugu caansan. Run ahaantii Ilaahay ayaa qof walba u abuuray, una sameeyey suurad gooniya. Ilaahay ayaana dhahay, walaqad karamnaa bani aadama. Bini aadamka waan karaamaynay, waxaana ka abuurnay suuradda ugu wanaagsan. halkan waxaan maanta kuugu soo bandhigayaa dad aad ka yaabaysi waxa ay samayn karaan ama awoodaan iyo qaabka uu u eg yahay muuqaalkooda. halkan waxaan kuugu soo gudbinayaa 5 qof ee ugu la yaabka badan dunida. shakhsiga koobaad waa Taraan Fan Hai. ninkan ayaa qabsaday wargeysyada caalamka ayaamadan iyadoo ay dad badan la yaabeen ninkan qisadiisa iyo muuqaalkiisa. sawirqaado u shaqeeya warbaahinada caalamka mid ka mid ah ayaa ku booqday hooyigiisa si uu documentary uga soo diyaariyo. sawirqaadihii ayaa goobta kula kulmay arrin aad uga nixisay. kolkii uu guriga u soo galay ayuu wuxuu arkay nin timuhu dhulka u daadsan yihiin ilaa bannaanka qolka. ninkan ayaa waxaa madaxa ka asiibay xanuun isagoo jira da'da 25 sano. kadibna wuxuu iska xiray madaxa. madaxii ayaa aad u sii xanuunay. ninkan ayaa xilligaas wixii ka dambeeyey go'aansaday inuusan timihiisa dambe iska jarin. 50 sano kadib timihiisa ayaa waxay dhaafeen lugihiisa 22 fiit. culayskooduna waxay noqdeen 23 pounds. ninkan ayaa markii la weydiiyey waxa ku kalifay arrintan ayaa waxa uu ku jawaabay xanuun madaxa iga asiibay dartiis ayaa igu kaliftay inaan timahayga mar dambe jarin. Taraan Fan Hai ayaa loo aqoonsaday ninka ugu timaha dheer caalamka. ninkan ayaa waxa uu u dhashay dalka Vietnam wuxuuna dhashay sanadu markay ahayd 1936. Taraan Fan Hai ayaa geeriyooday sanadii 2010 isagoo jira da'da 79 sano. dadkiisii ayaa ku tilmaamay inuu ahaa nin naxariis badan oo deeqsi ah, dadkana caawin jiray, wuxuuna dadka ku daweyn jiray dawooyinka heerbalka. shakhsiga labaad ee muuqaalkeenna maanta waa Yu Shan Huan, waa nin u dhashay dalkaasi China. ninkan ayaa muuqaalkiisu ka duwan yahay dadka kale muuqaalkooda. 96% ninkan jirkiisa waxaa ku daboolan timo aad u fara badan. ninkan ayaa wuxuu dareemayaa raaxo la'aan, isagoo sheegay goorta uu jidka marayo inay dadku ku maadaystaan iyagoo la yaaban qaabka uu u eg yahay muuqaalkiisa. Yu Shan Huan waxaa asiibay cudur ku dhaca dadka si naadir ah oo aan fara badnayn. cudurkan ayaa magaciisa waxaa la yidhaahdaa hypertrichosis, kaas oo keena koritaanka timaha qofka. waana cudur dhif iyo naadir ah. Yu Shan Huan ayaa yidhi, anigu waan ku faraxsanahay qaabka aan u ekahay. waana cajiib, qof ani ila mida ma jiro dunidan, balse dadka qaar ayaa noloshaada kuu ogoleen wax yar oo nafisa xitaa. sababtoo ah dadkaasi waa dadka ku nool nolosha beenta ah, naftadoodana aan ku kalsoonayn, laakiin waan ku faraxsanahay noloshayda. ninkan ayaa waxa uu leeyahay gabar ay isjecel yihiin, wuxuuna abuuray website uu ku soo bandhigo sawiradiisa si uu u noqdo qof caan ah oo dunida laga wada yaqaan. wuxuuna jecel yahay inuu noqdo dadkan heesaaga ah ee la yidhaahdo rock star. shakhsiga saddexaad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadan doono waa Ekaterina Lizina. gabadhan ayaa waxaa loo aqoonsaday gabadha ugu lugaha dheer dunida markay ka soo muuqatay barnaamij la yidhaahdo Morning of Hollywood oo lagu waraysto dadka jilaaga ah. gabadhan ayaa labadii wariye ee waraysanaya waxay u fuuleen jaranjaro si ay qoorteeda u gaaraan. muuqaalkaas ayaa dad badan ka yaabiyey. sidoo kale gabadhan ayaa waxay ciyaartaa ciyaarta basketballka, waana mid ka mid ah khibradaha ay leedahay gabadhan. gabadhan ayaa u dhalatay dalkaasi Russia. dheerarka lugaheeda ayaa waxay gaarayaan 6 feet iyo 9 inchi. gabadhan ayaa caan ka noqotay dalkeeda Russia iyadoo loo bixiyey aktaradda ugu dheer caalamka. xilliga ay jidka marayso, dadka ayaa isku qabsada inay sawir la galaan, dadka qaarna waxa ay la yaabihiin muuqaalka dheerarkeeda. shakhsiga afaraad ee aan muuqaalkeenna ku soo qaadanayno waa Nick Storbell. waa ninka ugu carrabka dheer dunida aan maanta nool nahay. ninkan carrabkiisa ayaa cabirkiisu wuxuu gaarayaa 10 sentimitir. carrabkiisa ayuu wuxuu ku soo taabanayaa sankiisa, sidoo kale suxulkiisa. ninkan ayaa ah nin majaajiliste ah, dadkana uga qosliya mucjisadiisa. ninkan ayaa galay buugga World Record isagoo loo aqoonsaday shakhsiga ugu carrabka dheer dunida. da'diisu waa 24 sano jir, ka soo jeeda California, laakiin dhalashadiisa rasmiga ah ayaa waxay tahay Canadian. sidoo kale ninkan waa xirfadle artiste ah. 2015 ayaa loo aqoonsaday ninka ugu carrabka dheer dunida. ninkan ayaa yidhi, dhibka keliya oo i haysta ayaa ah inaan waqti badan ku lumiyo xoqidda carrabkayga subaxii hore markaan cadaysanayo, waayo carrabkayga ayaa saa'id u dheer, mana gaarsiin karo cadayga intiisa badan. shakhsiga shanaad ee ugu la yaabka badan dunida ayaa ah Dean Karnazes. madaalaha aan marna neefsan. orodyahanada dunida oo dhan waxay istaagaan markay gaaraan goobtii loogu talagalay ee guusha lagu kala qaadayay, laakiin Dean Karnazes marna ma istaago
waa shakhsiga keliya oo dunida ku nool oo aan marna daalin, murqihiisana ma ahan kuwa daalo. ninkan ayaa ordi karo 3 maalmood iyo 3 habeen isagoon marna istaagin. waa ilaahay quwadiisa. ninkan ayaa maalin walba ku orda buuraha Meadows ee ku yaala California. ninkan ayaa ku dhashay magaalada Los Angeles ee dalkaasi Mareykanka sanadu markay ahayd 1962. ninkan ayaa waxaa la yidhi wuxuu orodkiisa ka bilaabay yaraantiisii isagoo guriga orod ka bilaabayo ilaa uu iskoolka tago. ardayda ay isku galaaska ahaayeen ayaa aad ula yaabi jiray ninkan isagoo dhididaya maalin walba fasalka soo galaya, wayna ku maadaysan jireen. ninkan ayaa yidhi maalinta ay ardadu igu qoslaan waxaanba ka sii qaadi jiray farxad iyo dhiirigelin, anigoo guriga haddana wakhtiga iskoolka la iga soo daayo orod ku tegi jiray. ninkan ayaa 3 maalmood iyo 3 habeen ordi karo isagoona daqiiqad istaagayn. Dean Karnezes ayaa yidhi waxaan isku arkay mucjisadan wakhtigan 11 sano jiray oo aan iskoolka dhiganayay. markaan iskoolka ka soo ordo oo aan guriga imaado ma dareemi jirin wax daala. waxaan arkay anigoo u baahan orodka, taasina waa haybad aan dadka kala dheerahay, ayuu hadalkiisa ku soo afjaray. ninkan ayaa caan ka noqday dunida, wuxuuna furtay goobo badan oo ganacsi ah oo ku yaal dalkaasi Mareykanka, waxaana ka mid ah goobahaas Frozen Yogurt Shop. Dean Karnezes ayaa 2014 loo aqoonsaday Best Badies of the Year, shakhsigii ugu jirka quruxda badnaa sanadkaas 2014. gun iyo gunaanadkii kuwaasina waxay ahaayeen 5 qof ee ugu la yaabka badan dunida. intaan barnaamijkan kan xiga kugu arki doono waxaan kaaga tegayaa walaal farxad waartiyo guul aan dhammaan. channelkana sii faafiya, fiidiyowgana like saara. mahadsanidin. waa walaalkiin Saki Cabdi Yaasiin.